السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ودكتور محمد أبو بكر محمد كول قلا سبتال كرويل. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo wacyigelin ku saabsan hepatitis ama cagaarshow. waa maxay cagaarshow? cagaarshow waa caabuq ku dhaca beerka sababi kara noocyo kala duwan fayraska sida A, B, C, D iyo E. waxaan rabaa inaan ka hadlo sida fayraska u kala faafo. A iyo E waxay ku faafaan oral cunada iyo biyaha wasakhaysan. xagga B iyo C ku faafaan dhiigga iyo galmada iyo qalabka caafimaadka oo aan nadiifka ahayn iyo in ay u gudbi karto maamada hooyada uurka leh cunugeeda. waxaa jiro dad badan oo la nool cudurka cagaarshowga ah sanado mararka qaar wax calaamado ahna inaan ka soo muuqan lagana yaabo hadhow inay galaan xaalado khatar ah oo beerkooda dhibaato ay soo gaarto inuu baaba'o. tusaale sidaa darteed waxaa laga maarmaan ah qofka inuu isbaaro oo ishubiyo haddii uu qabo cagaarshow iyo haddii kale, haddii calaamado jiraan iyo haddii aysan jirinba. baaritaanada la sameeyo haddii qofka la helo cagaarshowga laga helo, waxaa saxan in loo sameeyo baaritaano lagu hubinayo iyadoo la isticmaalayo habab horumarsan iyo mashiino horumarsan. maalinta caalamiga ee hepatitis waxaa loo asteeyay si sar loogu qaado wacyiga bulshada ee ka haystaan hepatitis. bulshadoo dhan iyadoo ay qaadi karaan hepatitis waxaa u nugul gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka. diraasaadka ayaa sheegaya in ka badan 2 milyan oo qof inay u nugul yihiin sababo la xiriira shaqadooda ay qabanayaan darteed inay qaadaan cudurrada dhiigga ku faafa, ayadoo halista ugu badan ay uga imaato hepatitis C iyo B. meelaha ugu daran laga qaadi karo waa hubinta cirbadaha qofka la siinayo, degdega lagu qabanayo shaqooyinka qaarkood oo gaarsiin kara dhaawac shaqaalaha caafimaadka. bukaanada ayaa ayagana ka marnayn inay halistaas u nugul yihiin oo ay iska xaqiijinta daawada la siinayo, cirbadaha lagu duraayo iyo qaabka loo qabanayo shaqadoodaba. sidoo kale bulshada ayaa ka qaadi karo goobo ka baxsan xarumaha caafimaadka sida timajarayaasha, meelaha qurxinta dhagaha loogu geliyo ama meel walba oo keensanaysa qofka maqaarkiisa in wax sharbi ah ama wax mudaya loo adeegsada. ka hortagga ayaa ah meesha ugu horeyso oo wax lagu gaari kara. waqtiga ha dhayalsanin, ha sugin, isbaar, istalaal, kadibna ka taxadar. taxadarka ayaa badbaado ku ah sida uga hortagtid cudurka qarsoon ama dilaaga dahsoon. haddaba haddii aan ogaanay in cudurka cagaarshow uu yahay cudur ku faafa bulshada dhexdeeda la isna qaadsiiyo, dardaarankeena waa inaan u degdegnaa xarumaha caafimaad si aan u helnaa baaritaankaas oo noqon kara mid ka badbaadiya naftaada iyo bulshada iyo faamilkaagaba. u dadaal inaad noqoto qofka ugu